نمان بير قدر نمان بير قدر بلن وكو نمان بير قدر باي بحوا باي بحوا باي بحوا باي بحوا degmada Tuluguleed gobolka Faafan oo qani ku ah wax soo saarka dalagyada kala duwan ayaa laga bilaabay goynta beeraha kala duwan ee la beeray xilli roobaadkii xagaaga ee barnaamijka dalag iyo daryeel oo qaab casri ah loo jarayo waxaana sanadkan degmada Tuluguleed gobolka Faafan laga beeray iyadoo la dardar gelinayo barnaamijka dalag iyo daryeel 83,000 hektaar oo la rajeynayo inay ka soo go'aan wax soo saar kor u dhaafaya 987 oo kintaal oo qamindi u badan gudoomiyaha gobolka Faafan mudane Cabdixakiin Sheekh Xasan iyo maamulka degmada Tuluguleed ugu horeeya gudoomiyaha degmada injineer Maxamed Faarax oo soo kormeeray qaabka casriga ah ee loo goosanayo beeraha degmada Tuluguleed ayaa ka warbixiyay halka uu sanadkan gaaray qorshihii barnaamijka dalag iyo daryeel ee gobolka Faafan iyo qorshayaasha xilliyada xiga ee lagu dardargelinayo wax soo saarka dhulbeereedka baaxadda leh ee gobolka Faafan sanadkan gobolka Faafan ay qorshaysnayd in la beero dhul gaadhaya 416 oo hektaar taasoo la rajeynayo ama aan qorshaysanay inuu ka soo go'o wax soo saar dhan 10 milyan iyo 300 oo kun oo kintaal si guudna haddaan u sheegno gobolka waxaa qorshaysnayd in la beero qabadinka 142 oo hektar oo uu ka soo go'ayo wax soo saar dhan 2 milyan iyo 200 kun oo kintaal marka wacyigelintii faraha badnayd gashiyadii beeralayda la siiyay wacyigelintii iyo maaragtay tababarkii kala duwanaa ee beeralayda la siiyay waxaan ku gaadhnay sanadkan qorshihii dalag iyo daryeel natiijo fiican oo midho dhal oo saad aragtaan marka rubucii hore waxa soo go'ay guud ahaan gobolka markaan eegno 691 kun oo kintaal oo dalagyada noocyada kala duwana rubucan labaad oo qabadinka maanta la jaraya uu ku jirana waxaan rajeynaynaa inuu soo go'o in ka badan maaragtay 1 milyan iyo 800 kun oo kintaal marka runtii qorshaha dalag iyo daryeel oo qorshe xukuumaddu ay qaadatay in lagaga baxo ku tiirsanaanta caawimada shisheeye taasoo dadkeenu maaragtay waxa weeyaan haddii dhulka lagu foorarsado oo dadaalkan oo kale la sii laba jibaaro sanadaha soo socda aan rajeynayno in lagaga baxo ku tiirsanaanta marka runtii aad iyo aad bay maaragtay wax soo saarku sanadkan u wanaagsan yahay gaar ahaan saddexdan degmo degmada Tuluguleed maantaan joogno degmada Awbarre iyo degmada Haruureys oo qabadinko lagu jira xilligii goynta waxaan bulshada u sheegayaa kaliya miisaaniyadda dawladda cunno yaraantan iyo gaajada kaga bixi karo marka bulshadii miisaaniyadda dawladda hayno intaas oo la isku daray ayaa lagaga gudbi karaa cunno yaraanta deegaanka ka jirta degmahan sanadka waxa qorshan noo yaalay inaan gaarno 100,000 oo hektar laakiin carqalad jira awgeed waxa noo suurta gashay 83,000 oo hektar inaan beerno oo dalag kala duwana dhinaca qamadiga hadaan yimaado qorshaygu waxa inaan beerno ama aan gaarnay 666 kun hektar baan gaarnay waxaan rajeynaa dalag ah inuu dhinaca qamadiga ka soo go'o Tuluguleed 987 kun oo kintaal inuu soo go'o ayaan rajeynaa carqalad fara badan oo kale waxa ay bulshada la soo darsay baa jira oo hadda aan isla maanta lafteeda waxa la badan ka mataqaanaa ka war garwaaqsanay oo macnaha ayaan aragnay oo ah cagafada lafteeda jaraya oo ku yar guud ahaan deegaanka gaar ahaan degmada aad ugu yar waxaan ilaa hadda marnaa santarka ugu badan ama hektarka ugu badan 30 kintaal baa ka soo go'ay ilaa hadda ugu hooseeyna waxaan aragnay 16 kintaal baa ka soo go'ay waa sida dhulka roobka u kala heleen iyo say mataqaanaa shacabka lafteeda dadaalka u kala gashadeen qiimeyn baa wadnaana suguud dhanka kalena bulshada beeralayda ee degmada Tuluguleed iyo bulshada muruqmaalka iyo ka faa'iideystay xilliga beeraha la jarayo iyo waliba xilliga la beerayo beeraha kala duwan ayaa iyaguna la hadlay warbaahinta deegaanka beertaydu waxay ka koobnay 10 hektar wixii aan rajeynayay waan ka helay waxaan ka soo go'ay beerta 140 kintaal baa ka soo go'ay oo qamadiga qamadiga marxalado badan baan la soo marnay degmada dadaal badan ay gelisay uu qamadiga hadda maanta ku go'ay dadaalkaas waxa ka ahaa xafiiska beeraha ee degmada Tuluguleed marka la jarayna gacan baan ku jiray dhibaatooyin waxaan kala kulmi jirnay marka aan jarno
ee la kuuso waa mar roobabaa ku dii jiray waqtigiisa noomayn tumayn dameeraa lagu tumi jiray roobabaa ku dii jiray dalaga intaan maanta hele lagama helay maanta ninka hebel baa guus loo qodaya baa loo jiray guuska loo qodayo 20 qindi 30 qindi oo dibi ah ayaa loogu qodi jiray haruur baa la qodi jiray haruurka maanta waxa loo qoday ninka ama 5 hektar ama 6 hektar 6 hektar waxa ka soo go'ayay markay ugu yar tahay 100 kintaal 150 kintaal 80 kintaal 60 kintaal oo hooseyn oo haruura laakiin hadda maanta cagaf baa lagu qodayaa laakiin waqtiga hore dadku xoogiisa murqiisa ayuu maal jiray inkastoo dhinac marka laga eego hadda dadku ilbax iyo aragnimo iyo waxay u kordheen oo adduunka marka waqtiyada TV ma jirin meelaha waxba lagama daawan jirin cagaftan goynayso oo kale lama haysan dadweynaha goynayay ma jaal la qaadanayay maanta beertan waxa goyn lahaa 200 oo nin baa goyn lahaa annagu waxaan nahay dadkii shaqaalaha ahaa aad shaqo abuur ka helay aad iyo aad baan uga faa'iideysanay iyaguna waa ka sii faa'iideysteen annaguna waa ka sii faa'iideysanay intaas oo arkaysiin oo naga dambeeya shaqaalihii baan nahay aad iyo aad baan uga faraxsanahay waan cabaynaynay nin kastaba waxa weeyaan intaas oo qoys buu ayuu mas'uul ka yahay nin kastaba uu looyanayaa qoysaskiisu looyanaya annaguna waan ku mahadnaqaynaa